muddo bil ah oo ay socdeen tartanka ciyaaraha heerka koowaad ee magaalada Burco waxaa la soo gaadhay qaybtii ugu dambeysay ee loogu baxayay koobka. ciyaartan ayaa dhex martay labada kooxood ee ciidanka qaranka gaashaan iyo kooxda ku ciyaaraysay dawladda hoose ee degmada Burco. muddo 90 daqiiqo ah oo ay socotay ciyaartu waxay ku dhamaatay 2-2 waxayna sidaasi guushi ku raacday kooxda ku ciyaaraysay ciidanka qaranka gaashaan ee gobolka Togdheer. kooxda ciidanka qaranka gaashaan iyo kooxda hay'adda duulista iyo madaarada ayaa isugu soo baxay koobka. Cabdirasaaq oo kamid ah wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa nooga warbixiyay heerarkii kala duwan ee uu soo maray tartankani. waayo halkan waxaa tartan lagu qabtay 12 kooxood oo seereeda ama heerka koowaad kooxaha ayaa tartan halkan lagu qabtay. qorshuhu markii hore wuxuu ahaa 12 ka kooxood waxaa la isla gartay in 8 kooxood ay noqon doonaan naadiyada heerka koowaad. dabadeedna wasaaradda ayaa saas soo jaangoysay oo waxa weeye ugu tala gashay gobolada wixii aan Hargeysa ahayn in naadiyadoodu ay noqdaan seereeda ama kaalin heerka koowaad 8 kooxood. sidaa daraadeed maadaama 12 kooxood halkan ku haynay waxaa waajib ku noqday in qorituur loo sameeyo in tartan loo qabto. dabadeedna waxay ku guuleysatay in tartan loo qabto. tartanka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer oo ku hogaaminayo isuduwa wasaaradda Cabdikariin ayaa hilgeliyay waxa weeye isagoo kaashanaya shaqaalihiisa wasaaradda iyo waxa weeye dhammaan xubnaha gobolka oo waxa weeye haday tahay ciidanka nabadgelyada haday tahay barasaabka haday tahay ayaanu tartanka furnay 12 kooxood. waxaa la doonayay 8 soo gudubto 8 baa soo gudbay 4 kooxoodna way hadheen. 8 soo gudbay haddii aan ku noqdo waxa weeye 8 kooxood ee waxa weeye asluubta booliiska gaashaan wasaaradda duulista wasaaradda maaliyadda saab TV sideed kooxood baa u soo gudbay tartanka heerka koowaad. intii ciyaartu socotay waxaa daawanayay qaar ka mid ah xildhibaanada u sharaxan golayaasha wakiilada iyo deegaanka. telefishinka SBC oo la kulmay xildhibaanadaasi waxay nooga warameen muhiimadda ay leedahay ciyaaruhu iyo in la dhiirigeliyo dhalinyarada. galabta waa galab aad iyo runtii aan faraxsanahay. waxaan halkan ka soo qayb galay ciyaar aad u qiimo badan oo ah ciyaar adag oo laba kooxood adag ay ciyaarayeen. kooxda dawladda hoose ku ciyaarsay magaca dawladda hoose iyo kooxda gaashaan oo iyaduna ku ciyaarsay magaca ciidanka qaranka Soomaaliland. marka koowaad waan u hambalyeynaya horta waxa guuleystay kooxdii guuleystay aad baan ugu hambalyeynaya gaashaana. runtii anigu kama sharaxaan ama xisbigan ka tirsan ka xisbi cid ahaan waxaan aad u dhiirigelinaynaa in ciyaaraha noocana runtii waa waxa loo baahan yahay oo wax bulshada lagu mashquulinayo wax dhalinyaradu u baahan tahay. waxa weeye in la joogteeyo oo koobka la dhigaya ay noqdaan koobab markasta soo noqnoqda. runtii sportska waa laf dhabarta dhalinyarada ama se maxaan ku dhahay xuduudda wadanka ugu xoog badan ee dhalinyarada. kullay anigu ka musharaxaan haddii ilaahay idan ka dhigo aniga u sharaxan golaha deegaanka degmada Burco haddii aan ka mid noqdo musharaxiinta ama xildhibaanada guuleysta ee gobolka u soo baxay insha Allah tacaala waxaan xoog saari doonaa sidii aan sportsku halku maanta marayo aan hore uga sii wadi lahayn. mas'uuliyiinta gobolka markaa jooga insha Allah tacaala aanu xiriir dhowda sameyn lahayn waayo annaguna de maanta dhalinyaradu nahay kuwa ciyaarayana waa dhalinyarada inuu ka tirsanaan bay ka mid yihiin. marka dhiirigelin ballaaran insha Allah tacaala aanu siin doonaa sportska. hadda dhinacayga wax taagan macallin Cabdiraxmaan waa macallinka kooxda gaashaan ee koobka u soo baxday galabta ku soo dhawow telefishinka SBC. صحفي الله وندوهاي مركورة ونسلاميا تيفي SBC يولي أيام لبا مركورة الحمد لله رب العالمين وجهرين وحما هذا إسكال الحمد لله إلى هوين يكون كله وحنمان صعيا نعياتي سمفين الكا فردمات كترتنكا هريالك كول كتقدر وحنو بحنا فاينل الحمد لله رب العالمين تيمكا عيدن كقرن كجاشان هذه أظن بقادينيا عياتويد شقف في عم بغبتين dadaalkii looga baahnaa iyo dadaalkii loo igmaday si fiican bay u guteen. waxaan kaloo mar labaad ka hambalyeynaya kooxdii la ciyaarisay ee dawladda hoose oo watay macallin weyn oo waayo araga oo khibrad leh oo macallin Dhoobir qof kastaba uu garanayo. alxamdulillah maanta macallin Dhoobir ka guuleystay macallinka soo yimaadeen ka guuleystay rajeynaya insha Allah tacaala annagii kooxdeeduba. marka labaad martaxaadka waxaan hambalyo bogaadin u dirayaa taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Sarreegaas Nuux Ismaaciil Taani taliyaha qaybta 12aad gaashaan la dhaxay Faysal Cabdi Bootaan abaandulaha qaybta 12aad gaashaan la dhaxay Kayd Ismaan dhammaan iyo taliyaha ururka
taliya waxda isboortiga ee ciidanka qaranka ee gaashaanle cali yaasiin dhammaan ciidanka qaranka iyo kooxda ciidanka qaranka gaashaanba waxaan leeyahay hambalyo TV-ga SBC waxaan leeyahay mahadsantihiin. kooxda ciidanka qaranka gaashaan ayaa isu diyaarinaysa hanashada horyaalka heerka koowaad ee gobolka Togdheer halka kooxda hay'adda duulista iyo madaarada oo iyadu hore u qaaday koobka horyaalka heerka koowaad ee Saro-Eeda gobolka Togdheer difaacanayso markii labaad kaasi oo la ciyaari doono 12 bishan Maarch. ayaan la Cabdullaahi Jaamac warbaahinta SBC magaalada Burco.